gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri Jama oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku dhawaaqay in rugta ganacsiga Soomaaliland ay sameynayso buugga hanaanka ganacsatada Soomaaliland ee sanadkan ku guda jirno isagoo ka hadlay waxa uu yidhi aniga ku hadlay magacayga iyo magaca xubnaha rugta ganacsiga Soomaaliland waxaan ganacsatada Soomaaliland la socodsiinayaa inay maanta laga bilaabo ay bilaabantay diyaarintii iyo soo saaridii hagihii ganacsiga ee Soomaaliland oo shaqaale ka socda rugta ganacsigu ay idinku iman doonaan rugihiina iyo meheradiina iyo xafiisyadiina sida awadeed shaqaalaha hawshooda loo fududeeyo qofkii daraynaya inuu ka qayb qaato na waa soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaanu la socodsiinaynaa buugga ganacsatada kaliya uma xidhna hay'adaha dawladda wasaaradaha hay'adaha madaxa bannaan hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha maxalliga ah iyaguna wixii warbixina wax qabadkooda ee hawlaha bulshada u hayaan way gashan karaan oo ku soo dhaweynayna geesta kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu si taxadir leh uga hadlay cabashada ay muujiyeen ganacsatada gaadiidka kala soo degta dekedda magaalada Berbera ayaa waxa uu yiri cabashadaas gudoomiyahan inay soo gaarin oo xubnaha sheegaysa may noo iman oo cabasho ku saabsan arintaas namay soo gaarin xogna kama hayno laakiin caad ahaan waxaan filayaa waynu ka gudubnay in dekedaha la isku weydiiyo cashuur aan jidaysnayn oo sharci ku fadhiyin hadday timaadana waa arrin aanu anagu u taagno inaanu ka doodno oo hay'adaha ay khusayso ganacsatada arrintaa weydiisay inaanu kala hadalno oo ka doodno marka ogaanshaha iyaga waxaan filayaa muddo dheer baynu ka soo gudubnay in la isku weydiiyo taariifad lagu kordhiyay gaadiidka oo wasaaradda maaliyadda ay soo ogeysisay oo muxuu ahaa tii hore sanadkii hore ka badan na xafiiska may soo gaadhin